doorashada Somaliland wax ka ogow dhowr arin oo sanadkan ka cusub doorashada Somaliland oo bari dhacaysa musharax xilka Somaliland u tartamaya oo ballan qaaday inuu soo celinayo xiriirka xumaaday ee Soomaaliya iyo Somaliland waa doorashadii ugu xiisaha badneed oo Afrika ka qabsoonta laakiin aan dadka iyo dawladuhu isha ku hayn soo dhawow haddii ay tahay markii ugu horeysay aadna soo booqato fadlan nagu soo biir muuqaalkan noo sheer garay saaxiibada waxaa Somaliland ka socda u diyaargarowgii ugu dambeeyay ee doorashooyinka isku sidkan ee madaxtinimada iyo ururada siyaasadda labadii sano ee ugu dambeeyay waxaa muran uu ka taagnaa qabsoomidda doorashada Somaliland doorashadan oo loo balansan yahay inay qabsoonto biri ayaa noqonaysa tii saddexaad ee ka dhacaysa Somaliland tan iyo markii ay ku dhawaaqeen inay ka go'een Soomaaliya inteeda kale 33 sano ka hor waxaa xilka madaxtinimada ku tartamaya 3 musharax oo waaweyn oo kala ah Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha hadda talada haya oo ka socdo xisbiga talada haya ee Kulmiye Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ciro hogaamiyaha xisbiga Wadani iyo Faysal Cali Waraabe oo ku tartamaya xisbiga UCID Muuse Biixi Cabdi oo la doortay sanadkii 2017 ayaa mar labaad u sharaxan doorashadan muddo xileedka doorashada Somaliland ayaa ah 5 sano balse maamulka Muuse Biixi Cabdi ayaa talada haya 7 sano 3 musharax ayaa midkoodba waxa uu sameeyay ballanqaadyo intii ay socdeen ololaha doorashada 3 musharax haddii aynu eegno Muuse Biixi Cabdi waxa uu fogeeyay Soomaaliya inteeda kale waxa uu soo dhaweystay Itoobiya waxa uu sharci gaaban ku bixiyay qayb ka mid ah badda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ciro ayaa isna mar uu wareysi bixiyay waxa uu sheegay inuu soo celinayo heshiiska Somaliland iyo Soomaaliya hadday dani ugu jirto Somaliland waxa uu kaloo ballan qaaday xoojinta amniga iyo u soo dumida shacabka Faysal Cali Waraabe ayaa isaguna sheegay in ahmiyadiisa koobaad ay tahay aqoonsi u raadinta Somaliland waxaa jira xilligan dhowr arrimood oo doorashada Somaliland ka cusub tirada codbixiyaasha ayaa kordhay doorashada biri dhacaysa waxyaabo badan ayay kaga duwan tahay kuwii hore Somaliland uga dhacay waxaa sanadkan kordhay tirada dadka codkooda dhiibanaya waxaana ay kor u dhaafeen 1 milyan oo codbixiyaal ah gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland waxa uu sheegay in guddiga ay sanadkan si weyn ugu diyaar garoobeen maadaama tirada codbixiyaasha ay kordheen oo howlo badan ay u taalo tirada codbixiyaasha kama dambaysta ah ee xaq u leh inay codeeyaan ayaa ah 1 milyan 227,048 qofood goobaha lagu codeynayo waa 24,650 goobood laba doorasho oo isku sidkan dadka ayaa sidoo kale u codeyn doona madaxweyne iyo ururada siyaasadda falaqeeyaasha arrimaha siyaasadda ee Hargeysa ayaa waxa ay sheegeen in doorashadu ay ka baaxad weyn tahay madaxweyne la soo doorto oo kaliya balse sida lagu go'aaminayo xisbiga jiri doona mustaqbalka siyaasadda ee 10 sano ee socda doorashada waxa ay kaga duwan tahay kuwii hore codeeyuhu waxa uu yeelan doonaa 2 cod oo midi madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen uu ku dooranayo midna uu ku dooranayo ururka uu ugu codeynayo inuu ka mid noqdo 3 xisbi ee jiri doona 10 sano ee soo socda dhowr urur siyaasadeed ayaa u tartamaya sanadkan inay noqdaan xisbiyo siyaasadeed si rasmi ah loo aqoonsan yahay doorashadan xiisaha badan ayay isha ku wada hayaan dhammaan reer Somaliland oo iyagu ah awoodda soo doorashada madaxweynaha hogaamin doona iyo sidoo kale xisbiyada